السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سود وهذا خير تقيمه هي قايها الميل بودكاست وانتم دولين على ورجيني أنا عارف ما قبطان ماشي أنا جلس وعتام إسلا نور الدين ودني. ما أنت شيء كير بان النهاية وأيها شيء كان كواش صوما. شيء كذا وحيد عبنا يصير أنتي شيء كير وقصر لويه حكمنا أي كل إيه هنتهاي. shimbiraha iga aqaylinaya oo waxa laga yaabaa codkayga iyo codka shimbiruhuba inay iska sinaadaan marka iskooga dulqaatay akhay sheekadani waxay taabanaysaa boqor ama boqor aan dhihine waxa la dhahaa garaad ama suldaan kamida suldaamadii Soomaaliyeed ee maamuli jiray deegaamada Soomaalida qayb kamid ah gaar ahaan Soomaali galbeed especially agagaarka Jijjiga iyo nawaaxigeeda wuxuu ahaa marka suldaankaasi ama maxaa la dhahaa hogaamiye runtii lagu sheegay inta badan inuu dictator ahaa oo madax adkaa oo cajiib ah oo adkaa balse haddana haday dhinacyo kale ka fiiriso nin wuxuu ahaa wadankiisa dadkiisa iyo dadka uu maamulo gacan bir ah ku hayee laakiin dadka maxaa la dhahaa cadawga dadkiisa cadow iyo dalkiisa inuu cadow u soo gudbo xuduudiisa maxaa la dhahaa ogolaansho la'aan ninka soo istaaga maqaarkiisa iyo hilibka lafihiisu inay shakil la'aan ahaan jirtay inay say kala maqan yihiin ninka waxba yaana kaaga daalinin waxa dhacday waqtiyada kamid ah ayaa culimo ayuu u yeeray malaha inuu duceyso damcay culimadii kolku u yeeray wuxuu ku dhahay waxaan rabaa inay duceysaan aad quraan baa la akhriyay waxyaabo meeshii bucad iyo cunti iyo maxaa la dhahaa raashin iyo wax walba calooshooda qaadi kartay si laakiin talo wuxuu ku sameyn doonaa waxa dhacday wuxuu ku dhahay maalin maalmaha kamid ah isagoo u sheekay inuu maan weelinayay ilaa ay intay ka lulmoodaan ayagu maxaa la dhahaa ka seexdaan waqti walba sida adduunka u ilaalinayo culimadu deewaagi hore meeqaamka adduunka ugu sareeya ayay maanta maxaa la dhahaa maanta madaxdu ay taagan tahay meeqaam ka sareeya ay taagnaayeen oo dadka aqeedada iyo diinta ku badnay maalin maalmaha kamid ah ayaa iyaga sheekaynay u yar fiirsiyo yar aamusay wuxuu dhahay culimo waxaan i weydiiyay wax la su'aalo ma xume away seefihiinni aad wax ku maxaa la dhacay iskaga difaaci jirteen away ilaa wadan wuxuu ahaa colaadeed oo qof waliba qofka uu ka tabarir yahay inta mindida lagu aasa maxaa la dhahaa geeliisa iyo adhigiisa la dhaxoolihiisa la dhaco oo naxariis wax la dhaho aysan jirin markaas waxay ku dhaheen sheekh baa waxa la yiri carabi kula hadlay oo ku dhahay nahnu natawakkalu ala Allah fala nakhafu illa Allah annaga ilaahay baa ka cabsanaa oo cid kale oo ka baqnaba haba yaraatee ma ay jirto boqorow waxa weeye garaado waxa la waxaanu ka baqna oo kale ma balahaba marka anaga ilaahay baan tala saarana yar qoslo banaanka u baxaa la yidhiyo markaas wuxuu ku dhahay intuu ku soo laabtay ninkii ii xidigin jiray xidigihii wixii xisaabin jiray wixii egeegi jiray ayaa wuxuu dhahay nimankan culimada mid kamid ah waa inaad dishaa oo gowracdaa hadii kaleeto musiibo naf iyo maal ayaa kugu dhacaysa marka intaana kulligiin si aan idin wada layno dhamaantiin idin wada biraynin mid iska soo saara adii waxay culimada madax xoqato ay galgalato waxa la sheekh bay soo saareen balkan uu ku odxee inuu ugu tabar yaraa iyo si oo ma garanaye kadib sheekhiba waxa la dhahay uu soo kaxay gurigiisu ayr geeymuuna gowracini waxa la neef xoolo oo meelaha taagnaayo intuu ku qabtay meelaha joogay iyo qoorta ka jaray seeftii oo daayis oo dhig daayisay uu la soo galay kolkii horena sida neef ari oo ku carafaysanayay dhigta intuu qabtay si sharaf darra ah yuusi jiidalay waxba yaare kaaga daalinini safety oo days iyo la soo galay oo sheekhi lagu soo bireeyay markaas wuxuu ku dhahay wuxuu dhahay ninkii sheekh kale waa in maxaa la dhahaa wuxuu dhahay ninkii hadana ii xidigin hayay sheekha kale laguma kaaftoomi kare waa inay mid kale kolkuu yiri ya culimadu waxa la yiri mid meesha ka qumana guriga iyo ka miqbiqdo iska tuuray markaas waxa la yiri orod iyo ku baxay kadib waxa la dhahay kitaabkii iyo kaba midna iyaga on qaadanin ya culimadii orod maxaa la dhahay meesha kaga baxdaa la yiri 12 maalinka ay maxaa la dhahay si cararayeen kabalaan ada casarkiiba ka daba diray nima fardayaal dheereeyo wato markaas soo qabtaa la yiri soo celiyo ku yiri waxaana ku dhaxdaa ninkii lama dilin ninkii uu joogay kaale عقيدتنا باري iyo inta tawakkulkiinu leegan inal waxaad adeennanagu seef ma qaadanayno oo ilaahay baan tala saaranaay waxba sheekada yana kaaga daalinin markaas uu ku dhahay baa la yiri seeftaadana
maxaa la dhahaa seeftaada inaad cadawaaga iskaga celiso waa muhiim oo maxaa la dhahaa aadan qof liito oo daciifa noqon runtii waa wax muhiim ah weey inaad cadawaaga iska difaaci karto hadda qof muslima tahay waxa iska difaaci kartana ma jiro adiga haddaad muslim tahay waxa la leeyahay hub maxaad u qaadanaysaa muslim baa tahay si lagu dilade waa siyaasadda adduunka waadan baa culimadii mid kamid ahaa waxa la yiri kitaabkana gacanta midigtu ku wadan jiray seefna gacanta bidixda ayuu ku wadan jiray marka mid dhalinyaro ah ku yiri sheekhow labadan ismaba lahe maxaa soo garbadaa markaasuu yiri baa la yiri kanna ilaahay baan u wataa kitaabkan kanna ina aadan baan u wataa marka waxa weeye runtii sheekada waxaan u soo qaatay inta waxoogay yar qosolka ku jirtay xigmadda ku jirta marka inaad difaac lahaato waa wax muhiim ah weey muslimnimadu kuma amreysay inaad maxal mar walba faramanaato adii lagu tuntee muslimnimadu inaad cadawaaga iska dhicin kartay ku amreysa oo iska difaacdo marka hadan intaas idin kaga tagay salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh